caruurta Soomaaliyeed wixii ku horeeyay 15 sano qiyaastii farxadda iyaga ayaa gacmahooda ku samaysan jiray sababtoo ah ma jirin agab badan oo maanta lagu madadaaliyo docda kalena waxaa la oran karaa dhaqaalaha qoysaska ayaa yaraa isku filnaantii caruurta ee beriga iyo waxyaabihii ay samaysan jireen wali waxaad moodaa in aysan min guurin oo ay dhaxal ahaan u haystaan caruurta qoysaska danyarta ah Xasan Cabdi waa 12 jir caseeya agoon ah oo ku nool Muqdisho muuqaalkan waxaa laga duubay maalmo ka horeeyay ciidkii waxaa qulubtiisa saameysay caruur gacmaha ka haystay waalidiintood oo loo iibinayo dhar iyo agab madadaalo maalmihii ay ciidku soo dhaweyd ee diyaar garow lagu jiray Xasan maadaama marxaladii caruurnimada uu ku jiro mas'uuliyadna ay saaran tahay waxa uu go'aansaday inuu samaysto gaari gacmeed aan wax qarash ah uga baxayn hooyadiisna uu u geeyo lacagta uu kabaha ku baalsho waxaan bartamaha magaalada Muqdisho aan kula kulmay Xasan Cabdi oo ah wiil 12 jir ah isla markaana ku shaqeysta xirfadda caseeyaha waxyaabaha cajiibka ayaa waxay tahay in Xasan uu ku faraxsan yahay noloshiisa waalid baa biisha kulli Soomaa ogeeyada lacagti intee imisa kula dhalata caruur laba leena bis ani mid kale ayna hooyo iyo aabba mooda joogan hooyada la joogto bis aabana waa dhintay marka xilliyada uu shaqeynayo ma ahan xilliyada kale waxa uu u samaystay bahashan hal mar Xasan oo ka kacbal ciridana ka soo siko in uu dabcan uu alaabtan uu ku ciyaaro waa bal hal mar Xasanow halkaas inta tagtid soo fuul bal ku soo soco sidii hadda ugu soo soco bal hal mar عسيسكاغنا adoo sita dabta ku sida xaq inta tagtay ku soo socbal haye bal waa eegayna ku socbal ma ku riixa bal isku riixamiya kulli isagoo sida dabcan ugu mushaaxay magaalada dhexdeeda waa soo laabtay Xasan iyo gaarigiisii hayse maxaa dareentaa marka aad sidan aad ugu ciyaaraysid baashan aag dareema haye iyo maldalis haye qof kasta oo yar waxa uu u baahan yahay farxad maadaama ay kurimadiisa qayb ka qaadanayso laakiin caruurta Soomaaliyeed ayaan isku si farxad u helin sabab dhaqaale aawadeed Xasan waxa ka muuqata karti iyo hal abuur sida daraadeed hadii barbaarin wanaagsan iyo tacliin uu helana ay maskaxdiisa soo saarayso waxyaabo intifaac leh caruurta ayaa maalmaha ciidda ku madadaasha Soomaaliya hub macmal ah oo lagu soo farsameeyay dalka dibadiisa kuwaas oo qatar dhinaca maskaxda iyo aragga geliya mararka qaar caruurta Dr. Maxamed Amiin Samakaal oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca caruurta ayaa sharaxaya halista hubka macmalka ah ilmuhuna waa iftiinkii mustaqbalka iyo kuwii berina aan ficil lahayn dhibaatooyinka ugu badan ee aragno isbitaalada aan ku aragno oo ilmaha soo gaaro maalmaha ciidina waxay ugu badan yihiin dhibaatooyin ka imaado bastooladaha iyo waxyaabaha ilmaha ay ku ciyaaraan kuwaas oo dhibaatada ugu badan gaarsiiyo aragga ama isha oo ah xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadanka maadaama ay tahay midii adduunka uu ku arkayo qofka sheekada Xasan ayay waalidiintu ka qaadan karaan in caruurtooda ay baraan mararka qaar isku filnaashiyo iyo in ay samaystaan agabka ay ku madadaalanayaan iyo waxyaabaha kale si markaasi ay u noqdaan dad maskaxda tuujin kara mustaqbalkana ismeelayn kara ama isdabari kara Maxamuud Soofaysane warbaahinta qaranka Muqdisho